أوف شقة والنبع الله شقة العوصة أو بيتحانه ولا تهدم معلم كان هو مع وين يجدي سويد ويدري howlka hay-adda shaqaalaha dowladda ee magaalada Hargeysa habeennimadkii xalay waxaa lagu qabtay barnaamij ay soo agaasintay jaamacadda Anna Aadan. Barnaamijkaasi ayaa waxa uu daaranaa soo bandhigista kulliyadaha jaamacadda Anna Aadan iyo gorfaynta buugga doorashada takhasuska jaamacadda. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi ardayda dhamaystay dugsiyada sare ee hadda ku jira doorashada takhasuska jaamacadda ay ka baran lahaayeen. Marti sharaftii kala duwan ee barnaamijkaasi ka soo qayb gashay waxaa hormood ka ahaa Dr. Anna Aadan Ismaaciil asaasaha jaamacadda Anna Aadan marti sharaf iyo macallimiin. Ugu horeyntiiba halkaasi waxaa hadalka ku kala dambeeyay macallimiin maamulka jaamacadda Anna Aadan iyo mas'uuliyiin kala duwan. waxaana halkaasi ka jeediyeen hadallo isugu jira dardaaran iyo dhiirigelin. laba barnaamij oo kala ah bandhiga jaamacadda ay ku soo bandhigayso kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso sidoo kale falanqaynta buugga tilmaamaha iyo hagaha u ah ardayga secondary-ga ka soo baxa ee ka caawinaya doorashada takhasuska iyo kulliyadda uu u baahan yahay. runtii qoraaga buugga oo caawa soo bandhigi doona Cabdiraxmaan Axmed sidoo kalena ka mid ah howlwadeennada jaamacadda Adna aad iyo aad ugu mahadsan yahay. runtii barnaamijkan caawa wuxuu daba socdaa barnaamijyadaas iyo adeegyadaas aynu doonaynay inaynu ku caawinno ardayda siday u garan lahaayeen habka imtixaanada loo galo, habka loo diyaariyo, sidoo kale habka loo doorto takhasuska ku habboon ee arday kastaaba la jaan qaadaya kartidiisa iyo baahiyihiisa. ardayga doonaya inuu kulliyad doorto waxa uu u baahan yahay in uu labadaaba qiimeeyo. waxa la yiraahdaa kulliyadda waxay ku fiican tahay inaad tala ka weydiiso qof adigana ku yaqaana oo taaladkaad leedahay garan kara oo ama saaxiibka ama waalidka ama kaasa kulliyadda aad doonaysana garanaya. imka dad doonaysan dhakhtarnimo barato waxa qayb ka ah inaad kulliyadda doorato qof dhakhtar inaad wax ka weydiiso oo tiraado maxaa loo baahan yahay. kulliba taladaydana waan la wadaagi doonaa qolada dhakhtarnimada niyadda ku haya. isla markaana qofkaas adiga uu yaqaano oo garan karo waxaad ku soo bixi karaysaa. labadaas way isku xidhan yihiin. marka hore waxaad dadaal badan iyo xoog badan gelisaa wixii aad baran lahayd inay si sax kugu caddaato. mar labaad waa inaad ogaataa jaamacadda tayada iyo sumcadda ku leh waxa aad doonaysay inaad barato. markaa labada qodob ee ugu muhiimsan ee isleeyahay ardayda way anfacayaan waa kuwa. waxaan mar labaad idinku dhiirigelinayaa inaydan noqon qaar niyad jaba. waa inaad marxalado badan baad mari doontaan iyo xaalado kala duwan intaad jaamacadda ku jirtaan. intaad shaqo raadinta tiidiin samra ilaahayna isku xidha. doorta faculty-ga aad jeceshihiin oo horumarkiina iyo noloshiina ka dhex arkaysaan. baratikaalka iyo tiyariga wad ogtiino imaka haddaan kugu idhaahdo irbadda sideen baa loo geliyaa qofka saas dhiig looga soo qaadaa sidee looga soo qaadaa hadhow isweydiisa marka qofkii ka qaadaysa. laakiin haddii baratikaalka iyo tiyariga isku kaa barbar socdaan waxaan hubaa inaad isaagaa ka dhaafaysid. haddaad imika diyaar u tahay oo aanad hore u jeclayn laakiin imika diyaar u tahay inaad businesska barato, accountingka barato, imika baro gal jaamacadda ku dadaal. haddaad mathematicska siduu sheegay Cabdiraxmaan mathematicska xisaabta iyo sayniska haddaad ku wanaagsan tahay fursado badan baad helaysaa. haddii aad sayniska iyo xisaabta haddana aad ku wanaagsan tahay waxa la yiraahdaa waxaasaa kuu furan. halkaa ka daawada waa health science health nasiibkaan maanta heshee umaan helin inaad doorto macallimo laakiin kulliyadii toobadda macallimiinta ee Somaliland oo maalin doortay ayaan ku arkay macallimiin wanaagsan oo si fiican loo bartay. taasay igu xigtay inaan macallin noqdo. macallinimada waa mahadiyey oo noloshayda wax weyn bay ka bedeshay. gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay asaasaha iyo guddoomiyaha jaamacadda Anna Aadan Dr. Anna Aadan Ismaaciil. maanta kubaddu adiga goolkaaga ay ku taagantay waa halka aad adigu isdhigto waa dadaalka aad keento waa si aad goolkaa u dhaliso. hooyo dambe oo ku gacan qabanaysaa ma jirto intaasay halkaasay ku soo gaadhsiisay.
adiga iyo kartidaada iyo aqoontaada iyo qalinkaaga iyo dadaalkaaga iyo tartankaaga waa halkaas isla gaadhaan ama meel yaroo sokay iska fadhiista waa iska caadiye uf shaqadan waa nabcay allah shaqada culusa oo waaba imtixaane ama kuwaasaad noqon oo soo dacwooda oo yidhaahda macallinkan isdiisu way dheer yihiin wuxuuna waajibaadku nadra way badan yihiin oo waa nafbaxay naftibabu naga qaadaye hadday garanayso alxamdulilah bay odhan haddii ilaahay macallin saa u dadaalaya in ilaahayda siiyo ilaahay bay ugu mahadnaqi lahay markaa taan baan kula dardaarmaya waxa weeyaan anigu aqoontoo dhan baan jeclay nurses noqda idin odhan maayo waan se jeclaan laha umuliso noqda idin odhan maayo laakiin waan jeclaan laha dhakhtar noqda idin odhan maayo laakiin waan jeclaan laha markaa anigu waxaan doonayaa inaad wax allaale wax adiga niyaddaada aad ka jeceshahay ee aad isleedahay waad ku fiicnaan doonta oo waxaad u haysaa xiisaad u haysaa oo niyad baad u haysaa oo tartanka waad ku soo dhacsan kartaa oo kuwa kaa liita waad kaga wanaagsanaan kartaa farsamadaa baro guulad cunaabi MMTV